Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا وقصور أبني مدنا أبني دور أبنيها وأنا مسرور Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir. Dhismaha idin muuqdo waxaa gacanta ku haysa Macquul Construction Company. Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا وقصور أبني Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا وقصور أبني مدنا أبني دور أبنيها وأنا مسرور Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir. Dhismaha idin muuqdo waxaa gacanta ku haysa Macquul Construction Company. Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kala xiriir nambarada shaashada. أبني أبراجا وقصور أبني مدنا أبني دور أبنيها وأنا مسرور Macquul Construction Company shirkad qabata adeegyada dhismaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay adeeg dhismo, Macquul Construction Company kani waa mid ka mid ah foormaanada shirkadda Macquul. Waxa uu sharaxaad ka bixinayaa dhismaha dhulkani. codkana koron qaadiya qolkaan waa qol jiif ah 5 mitir 20 bal 4 mitir waaye meeshaan ay balkoon waaye qolkaan iskale waa kana asagana qolkaan meeshaan balkoon waaye qolkaas uu leeyahay 5 mitir ah laba daaqad uu leeyahay ma sha Allah waa kana hada soo sheegnayo meeshaan hadda cad waaye qaybtaan laba qol waaye laba qol waxay ka kooban yihiin qolka musqul shii qol inta haddan mustafiska tanna waa musqushiya baatan ay shii abu jannada qolka qaybtaan oo baatan indada waaye tan jiifki waaye baatan
المشيكي قول كان وقول أفر متر دنا أنا وعوية أفر متر لباتن وقول كعادي هاي قيبتان كلا أيضا نباتنا ما شاء الله وقول سيرفيس بحدا سيرفيس بيواي بحدا هذي ليش أنا كان كل يسوق بالله هاي واي كان أسجنه تن كشينكي واي قول كان أسجن ماشان هذا وجد لوا مسخشي واي أيضا ماشان ما شاء الله تن مسخشي واي قول كان وقول في عادي أسجن جيف كاي العز البلكون وكلي هاي ما شاء الله qaybtan oo hadda aan ka soo dhamaanay baartimiintadii koowaad ee eeday waxay ka koobneed laba qol iyo musqul iyo kushiin iyo balkoonkiisa qaybtan hadda aan taaganahay ayadana waxay ka kooban tahay waa qaybta labaad baartimiintii labaad waaye waxay ka kooban tahay 3 qol iyo kushiin iyo musqul qaybta haddii aan ku celiyo xaadeeda waxay ka kooban tahay kani waa kushiin بدان كنا وقلكي واسمع عادي هاي مستروم وهاي قل كان مستشاص قل كان وسدينين قل كان وقصنا قل كان وهاي خيبتان كرايد انت ونجا جرت وقل كان وايدنا تنا ومسؤول مرتا ايضا ربحين تاع كوون 3 قل يا لو مسؤول يكشيم وهاي بارتمنتدا غوريغا wuxuu ka kooban yahay laba baartamento qaybta kale oo ku sii xigta ayadana sidoo kale qaybtan oo dhinacan oo naga xigto had sida aan u taagan oo kala gacanta midigta waa laba qol iyo musqul iyo kushiin qaybta kale oo gacanta bidixda ayadana oo naga xigto qaybta biyaha labaad ah ayadana waa 3 qol iyo laba musqul iyo kushiin baartimintadeeda qaybta kale oo ugu sii dambayso oo qaybta biyaha afraad ah ayadana waa ayadana laba baartiminta waay laba qol iyo musqul iyo kushiin qaybta kale ayadana baartiminta labaad waa 3 qol laba musqul iyo kushiin oo musqul masterom ay tahay isku shaqadiga ay tahay qaybta ugu dambayso barxadna waxaa noo saaran hal qol iyo musqushiisa iyo waxaa noo saaran balkoon oo qofka oo loogu talgalay meel inuu istaago oo kulleysada oo qacdaysto kala ah loogu talgalay marka guriga intaas oo kooban yahay guriga qayb ahaan markii aan soo koobno wuxuu ka kooban yahay meeshaan hadda aan sii marayno waa kaamar iskaaladii oo hadda hoos aan ku sii socono guriga cabirkiisa wuxuu ku kooban yahay reedisho 13 mitir square ah qaybta hoose oo baqaarada hoose waxay ku kooban yihiin 3 qol ay ku kooban yihiin iyo kaamar iskaalo oo dhaxal guriga aydan meesha hadda aan ku sii socono qaybtan kale hadda aan sii galana aydan waxay tahay qaybtan hadda aan sii galano waa qaybta guriga oo laga rabo qayb keed ee waxad waayaan guriga barxadiisa waxay ka kooban tahay 13 mitir isku weer qolka ama iskaala dhaxda laga dhisay oo laga jaray kaliya bas waxa uu sii degayna hoos hadan insha Allah qaybtan hadda anaga aan taaganahay guriga qaybta kor waa ka imaanay sharaxadeeda waxaan taaganahay qaybtii hore oo baqaarka guriga hoos ah guriga cabirkiisa waa tareedisho waa 13 mitir nim sidii uu yaqaano 13 mitir oo tareedisho baqaarka hoos wuxuu ka kooban yahay 3 baqaar uu ka kooban yahay kaamiskaalada ay ku taalo qaybta dhexe gurigana alxamdulillah ilaahay faligiisa macnaha aan ku dhisnay intaan hadda uu noo taagan yahay aan soo gaarnay wixii kale noo sii dhamaan insha Allah waa sii gaari doonaa injineerka guriga noo dhisay waa injineer Maxamuud ilaahay macnaha ma sha Allah tabarakallah ninka reerkan hadda uu soo gaarsiiyay formankana aniga waaye Axmed Maxamed shirkadana waa shirkadda macquul marka ma sha Allah macquul waa shirkad weyn oo balaaran ma sha Allah caalamka meel walba waxa la bixiyo maanta laga soo dalbado ay ka dhisayso meel badan guri aan ka soo wada dhisnay muqdisho kaliya kuma koobna Soomaali gudaheedana macnaha kuma koobna guri aan ka soo dhisnay meel guri aan u aadin aan ka soo dhisin aniga qaasada forman ahaan ma jirto shirkadda macquul aan aaga soo shaqeeynin macquul ma sha Allah waxay leedahay formaamno aad u badan aan soo koobi karin ilaa iyo xadkooda ay gaari karaan markii aan soo koobo ilaa iyo 80 ilaa 70 forman ah ay gaarayaan shaqaalahan waxay ku jiraan heegan buuxo meel aan meeshii markaas oo shaqo ay ka soo baxdo ama shirkadda shaqaalaha ay aadiso isla markii heegan telefoonada ay ku yihiin meel walba laga soo baahan daqiiqad ay ku tagayaan baawrna ay wataan shirkad kumbaleeto dhameystiran waaye wax maanta ka dhameystiran ama amaanta wax oo ka maqan ma jiraan alxamdulillah ma haddaas ilaahay iskale ilaahay ay u sugnaatay shirkadda macquul iyo madaxdeeda oo injineer Maxamuud ay u sugnaatay anigana waxa ay formankii guriga dhisay oo guriga formankiisa ahaayay iyo shirkadda macquulna ku shaqeynayay formaanada macquul aan ka
tirsanaayeen marka alxamdulilah ilaahay faligiisa ku dhacday waxaan rajeynayaa intaan iyo kasii badan inaan gaarno waxaan wax walba mar walba aan sheegaynaa shirkad tayo leh macquul ah ku raaligelinayso ku qancinayso dhismeyna in walbo ay ka kooban yihiin intaasoo dhanna waxa waa insha allah waxaad ka arki doontaan shaqooyinka aan qabanay meel walba aan ka soo qabanay oo hadday soomaali tahay iyo hadday soomaali macnaa agaaraheeda ama meelaha darisyada etoobiya iyo kenya oo kale ay tahay dhan walba waa arki kartaan waana idin qancinaysaa waa shirkad idin qanciso boqolkiiba boqolba idin raaligelinaysa waaye annagana waxaan u taagnaa maadaama furmanidii aan nahay oo shirkadda u taagneed macquul wax waliba oo soo baxo oo guri dhismo ah inaan qabano sida ninkaas marka guriga loogu qabanayo oo ku qanacsan yahay raaligiisa oo yahay aan ugu dhisno ayadoo guri sharaf badan oo tayo leh oo qiimo leh oo indhaha caalamkana ay soo jiidanayaan wax walba aan ugu talgalnay in aan u qabano jazaakum allahu khayr hada wa salaamati assalaamu calaykum